وتمرك وورث إلهي سبحانه وتعالى ما هاد السكلة لكن وحن حسيا وما هذا علينا يا عيد كستوى قيب كقاعدتي أبابل كشركة قروح بدن لا مسوون مني وحن هكذا وما هذا علينا كسوى قيب كلاياش وحن سيجارة وحسيا بيناليستيك هبله يرجع كان صوف فريستي خبرة ضاع كنت يدين السماء لأنها وحينو الشرفة وينو فانا وأن صورت قلاهين لبعض سنة كهر إن هالكن صوف فريستين سديد يا لبعض خبير تضبط خبيرنا يهجمين شركة كردونا شن يصدون خبير وكوير ويستو شهادة لبعض قارنا متقنعي مقاطين شهادة استحاد أم بهوشي ذا كتيران تصرنتي وينو فانوي شركة نوحها شركة نوعي سوكلا أيوه الرجال السماهيو لكن إن شاء الله بنقول دونا شركة شوكتا أو سنة الله وحنا كسر بحي دون بوك شركة وأنا اللي لقيت سندونا إن شاء الله وتجد الشركة وحيا هاي إن نزدود تاجنو هير كدقارة حالة دينو كسبنا هاي يرن سويدينو عقبضها يا عقلها ينهر تاجن يرن حل عينو سوتش يدينو أم بحال كان وقسي أم بقعد لها يعني طريق الشحن وحن نزدود تاجني تضبع الشيء بنزدود تاجني سكيف في الأنشاء وعنتظر maalgashiga iyo warshadaha ganacsiga iyo marinka baananka iyo insurance-ka macdanta iyo tamarta kaabayaasha iyo deeqda todobada shay baan isu taagnay waxay nooga soo baxay in Soomaaliland ay tahay wadan hodana laakiin bulshada Soomaaliland inay tahay bulsho saboola والله بشيء نسلحين وبرشة سبورة وشوكتا ودن هذانا كيف حال السويدين كرا محاك هناي عرقلدو محيين محي نوس ورتقلين واي إن نكفى سنو خيرات كدلكين وحيابين هرتاقنا كصوبعي وحوي حقلان أحبذ ما لقوا عليه حقلان أقولان حرفلان نظام التعليم تينا أم بالنظام كنا وحبر الشو وحلقوا برطية وحكسوا بحا هي وحلقوا بها هي السوق عن سلاحين سوق الحرفة بها هي وأن كسوا بحا إن النظام كنا تعليمات اللي يرضوا عن لود ديارين سوقه يعني حرفتها أما بهية كتيرة يحرفها لو جب بهية وعقلوا إنه صباحي إن يشتري إنه سعر قلادات نقامات نقن وحنا هرمرك وحوي ومرق يمال يمسكح يمارين لسجي أفرتاوي مالك بدي وحكي ماذا مال لدكتي والسيفين بكي ماذا لكن دقنك السيفين كمري ونقول وحلا إذا إنك وحنا لقينا بقولك نسوق قلبا كوبي طبعا Chinese كحلا يا بقولك بافرتين أديان وحاول مركز كينيا والعكت اللي دقي لك هتصدي إنه كيد كامري حاجة الشغادة لفت جيدة واحد مدين لينجا دقن وناكسيه ولا نقوم يقان رفنتي الشغاب بنان waxaa laga yaabaa qofka South Korean-ka maalintii inuu shaqeeyo 17 saacadood inaka waxa laga yaabaa inta dawladda uu shaqeeyay shaqeyso 4 saacadood marka kaas laftiisu waa dhaqan shaqo ayaa naga maqan isaga laftiisa uu baahan wax ka qabano waxa kale oo inoo soo baxay ku tiirsanaanta inuu ku tiirsanahay wax dibad laga keenay amba laga soo sameeyay iyo qurba joogeena iyo deeq baynu ku tiirsanahay waxa kale oo ka soo baxay in runtii aynu u baahan inaynu adkeyno institutionskeena sharci
iyo maaliyadeed sida baananka iyo insurance-ka. waxaa kaloo inoo soo baxay xagga kaabayaasha inaynu halkaa shaqo badan inoo taalo kaabayaasheennu halkii aynu doonaynay inaanay joogin. waxaa inoo soo baxay tamartu oo qiimaheedu aada inoogu sarreeyo. haddii tamarta qiimaha aada inoogu sarreeyo markaa intaynu ka cunaynaa way yaraanaysaa, inta markaa nu horumaraynaana way yaraanaysaa. tamartu dee waa dhiigga horumarka weeye. hadduu kugu yar yahay socodkaaguna wuu yaraanaya. waxayna jirtaa challenge-ka ictiraaf la'aanta. inaan layna ictiraafsanida laftigeedu waa challenges badan bay runtii abuuraysa. marka way forwardku muxuu noqonayaa ee ka soo baxaya shirkan? wax badan baa la yidhi shirkan yaanu noqonin talking shop aynu isugu nimin, lagana yaabo mar kale aynu isugu nimaadno way wax ka soo baxaan. siday wax uga soo baxaan wixii ka soo baxay dee cidaweyne mas-uul ka noqoto. marka insha allahu waxaan ka fikeri doonaa in loo sameeyo guddi dabagal ku samaysa wixii ka soo baxay oo cid waliba xilkay ku leedahay ku dabagasha. waxaa kaloo aynu samayn doonaa shirar goosgoosa amba gaara si aynu uga boganno waxyaaba aynu ka bogan kari weynay waqtigoynu culi lahaa iminka. in kal dambe insha allah marka shirkan oo kale la isugu yimaado aynu ugu horreysino barnaamijka warbixin maxaa ka qabsoomay wixii aynu ka wada hadalay sanadkii hore. waxayna loo baahan yahay iskaashi dowladda qaybta gaarka loo leeyahay, hay-adaha internationalka, intaba waxaa loo baahan inay iska kaashadaan sidii loo xalili lahaa ama looga gudbi lahaa carqaladaha hadda aan soo sheegay. tafaasiisha ka soo baxday saddexdii casho halkan aynu wada joognay communique-gan ay ku qoran yihiin. ka waa laydin akhriyi doonaa insha allah. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.